shabeellaha dhexe sidaa la socoteen bawiigan waxaa ka socday isbuucan waxaa ka socday howlgallo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle howlgalladaas si wanaagsan ay u socdaan nimankan maleeshiyaadka ah oo ummadda Soomaaliyeed baaqada ku haya ayaa muddooyinkii dhanbaba halkan dhibaato aad u baahsan ku hayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee huwanta ay kaashanayaan nimankaas ayay maxaa ay sheegeen wacsigooda iyo xaqiijinta amniga deegaanadani aad ugu howlan yihiin si wanaagsan inuu socdo waata ilaa hadda maxaa qasaaro aad u geysteen maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalkaas ku qaadeen qasaarahooda runtii wax la soo koobi karo ma ahan qasaare aad u xoogan ay la kulmeen nimankan awalba dee wadiiqo qaldan ay ku socdaan wadiiqo qaldan un bayna ku dhimo doonaan marka dhibaato runtii aad u culus la gaarsiiyey howlgallo dhowr maalmood socday aan ugu qaaday laakiin labada howlgallo ugu waaweyneeday waxay ka dhaceen meel la yiraahdo dalka Labashiir iyo meel la yiraahdo Xararey labada howlgal runtii waxay kala kulmeen jab aad u weyn waxaana uga dhintay maleeshiyaad kor u dhaafaya kontomeeyo adab kalena waa looga qaatay oo ciidan ana midkood hogaaminayo midkood hoosaba nooba kala duwan magacay doonaan lahaadaano waa argagixisay ummadani dhibaato ku hayaan waxaan xaqiijin doonaa amniga deegaanadan ayagana insha Allah ta'ala intaan loogu maqsimo doone qorshayaal badan oo ku socod doona jira hadii la yiraahdo waata hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meelaha ay la wareegaan waxay u gaarsiin jireen gurmad ayada arintaasi maxaa ka heergelisay arrimahaas waa arrimo socdo howlo socdo waaye wax baa ka qorshaysan wayna socotaa